habeenkii xalay ahaa waxaan warbaahinta social media ku arkaynay dhinaca galbeed وعن وقت حاضر كان ما صدرت كلمة جبهة لفتجيدة أيها هدي إنه سيدا عدو قد واقعيسو لو قد واقع ده وحجرا نقونيا قبل كان أوضل كارهان دقمدن وحا أورت النصيب درا حلي إن الميديا كما قليي نين دريس حران دريس عصب أو ميليتري حران أو مقع جبهة الشيء جنا يحدنا لها مجالها لقى بحو ونصيب درو مجالنا بورا ما مسؤولية ده أنا جا إلهي النور دورتي ومدنا النور دورتي أنت إلهي كسو كيسا كلمة ده سنو واحد القاف وانكرها اللي قلنا يا أنت أيدجوه هو كل عضي أنت أيدجوه كلمة ده كل عضي وانكرها اللي قلنا يا عد مجالنا كبح كرتا أو يعني نن دور كل شراء ورانا يا كبحنا مجرتو كلمة ده صورة القاف بهاد وذي هذا اللي يلفت كذا وحي هذا الكاس ونوعه هاجران مايو مجالي إلهي أنا قلنا مسؤولية ده نقول حساتهم يا قلت ديجان بالله دورتي مسؤولية ده أنا جاهينا ضدك النبض بس يقولون ضدك كب حوليه هاي وضدك أي مجال أي عاصمة دبورة ما أنت عاصمة دي اللبعض قبل كأي سومال أنا كنا قط مركز ضدك كب حوليه هالكل شو أو دي سعرا وحويا السجا أنت كلام وحلا هاي أرنتها كاستغفر الله يسوع وحويا ضدك النبض بيكونوا ليهين حدا وح شاقنا إنسان سدا وحوم مقيهين يسدا وح إذا كا تبشيدنا لو توصلي ده الطريق هذا مرة لكن نبتقول يدرو دقمة بورة ما هي أجار كذا عد كريدة ما أقولين كوه هرية كوه دمبابا كعنبر لقو قبارية أنت هري لورا دقا لقو دول قاتنا دب دم بس لقو ما دول قاضني وهاي دومية بيش قرية قبل حاضر الشيء ما لك شيء ومجال بورة مشيش كاس كان عيو دولة دي بتشوكتي كل وحبات كوكتي الشيش كا مركا أرنتها وحلاقي جاري حلنا بدأت محاسة كان يبقى لوران كرام ما الشيش كي دولة ضايلة كشالة بحي مساعد ده وحلا كرا وفتي بقى صادر هنتي أرهم النبتقلية كوضح حلين أنت النبتقلية دونا دولة دوكليون ودنما دولة النبتقلية ده إلى ليس دورة يسا واتشعب جنا ودنا المها واحد ودنا بقى ومشنا ودنا marka wax weeye nabadgelyadu inaga guud ahaan in dan inoo watahay odayada iyo mas'uuliyiintii beeshareerno ay ka wada hadleena waa si fiican bay wada hadleen waxay ku wada hadleena kulay wax in gaar ah loo saaray bay ahayd xukuumaduna ogtahay odayaduna og yihiin mas'uuliyiinta la soo dirayna og yihiin halkeedina ay gaarsiiyeen hadee maalmaba kama soo wareegin in hadal dambe oo meesha ka soo baxo gudoomiye Salebaan Xasan Xaddi magacaygu Axmed Diiric Iltire waxaan kamid ahay warbaahinta ka hawlgasha magaalada Boorama dadweynaha qaarkood waxay isweydiinayaan Salebaan Xasan Xaddi run ahaantii dhawaan weerar ka dhacay degmada Boorama oo jabhadda Suldaan Abubakar Cilmi Wabar ay ku soo weerartay kamuu hadal jabhad bariga Boorama ah oo cudud iyo ciidan soo bandhigtayna wuu ka hadlay bal arintaasi sidee isku qabanaysaa sidee dadweynaha uga dhaadhicin kartaa hadda dadweynaha de qalbigoogu wanaagsan yahay waaba ka dhaadhacsan tahay oo aniga bay igama rabaan inaan ka dhaadhiciyo aqoonsiga jabhadnimada meesha xaraan ku ah kelmadda jabhad ayaa xaraan ah in la aqoonsado waxa weeye inama yaryar oo xabad suuqa karido xataa nooca iyo ujeedada ay lahaayeen aan la garanayn iyo hadaf ay lahaayeen in la yiraahdo maaha caynkan iyo maxay bay sameeyeen iyo cudud military weli cudud military meel lagu soo bandhigo jabhadeeda aanu arkaynaa xukuumad baa ka jirta meesha waxa weeyaan waxyaabahan khaldan ee la isla dhex wareegayay rumansku ay qaadayaan uunba iyo tabashooyinkan qalloocday dariiqoodii ka leexday ayuunbaa xabado loo ridayaay waxa alla wax meesha ka jiro dariiq sax ah cid socoto oo dhanaysa maanta waxaasaan xukuumadii ula tagnay oon ka afgaran weynay ma jiraan xukuumaduna waxay dhowris badan oo ay dhowrayso ayaa keenaysa inay wixii ku sii talaxtigaan oo xataa magac aanan jirin la sameeyo tan iyo intii xukuumadda xisbiga talada haya ee kulmiye ay qabsatay Soomaaliland uu Musabbix hogaamiyo ee adigu campaignerka aad u ahayd ashqaas kale oo siyaasiyiin xukuumadda xisbiga kulmiye gobolka wadal ka soo jeeda ay campaignerro siyaasadda u ahaayeen ku guuleysashada xisbiga kulmiye iyo gobolka awdal dadka ku nool maanta
way kala tageen run ahaantii shacabkuna tabashooyin badan bay ka muujinayaan maan la isooran karin jabhadahan iyo kala fogaanshaha xukuumadda waxay xukuumaddu ka garaabi weyday dareenkii shacab weynaha reer Awdal hadda ceeltiro baashaas malaha aduun bay ku kooban tahay maanta maalin reer Boorama ay kaga faraxsan yihiin xukuumadda Soomaaliland u dhalataa ma jiro ilaah baa idinku dhaariyo waa ogeydeenoo markaynu Hargeysa maanta loo safro waa la karhi jiray ku noqoshadeeda jid xumada meesha taala xukuumadda kulmiye dhiso waa ogeydeen jaamacadda Amuud iyadoo cashiradii simisaradii iyo imtixaanaadkii ay socdaan ayuu dadku kala xiri jiray maantana waa arkaysaanoo isdiiwaangelintii baaba sii kordhayso birishada laga dhisay waa arkaysaan ilaah ma ku dhaar waxa soo waxa awindheenu qabanayaan ma kuwa oranaya waa la sii kala fogaaday waa kuwa aynu ognahay inay marka hore wanaaga ka fogaayeen marka waxa weeyaan xukuumadda xisbiga kulmiye labadii jeer ee ay ku guuleysteen way mahadiyeen reer Boorama way mahadiyeen laakiin waxaan u maleynayaa hadda in la iska daadinayaan u maleynayaa nooxow yarkaadi gobolka Awdal waxa lagu yaqaanaa nabadgelyada waxbarashada iyo caafimaadka iyo deegaanka Soomaaliland inta kale u dheeray maanta hadii jabhad iyo colaad iyo waxa laga soo sheegay soo lama oran karo waa nasiib darro shacabku habsatay horta waa nasiib darrada shacbiga kuma habsanay shacbiga xukuumad baa jirta nasiib darrada waxay ku habsatay ka ummadiisii ugu baaqaya nabadgelyo darro ee guryaha ka baxayle kaas nasiib darro ku habsatay in fahmeen waxa uu socdo iyo waxa ka socdo kaas nasiib darro ku habsatay aan ku sii raaciye wadooyinka magaalada Boorama waxa lagu sameeyay nidaam ah in iyo out meel laga soo galo iyo meel laga baxo arintaasi dadweynaha reer Boorama aad bay u soo dhaweeyeen san la socono hasa ahaatay waxa jira caqabado in out ka saameyn kule way kamid yihiin gawaarida waaweyn ee waaraadada ah ee ganacsatadu ay leeyihiin oo mar walba suuqa ka dhax baarkimaysanaya Facebook horena ku guuleysanay dadkuna waa noo ducaynayeen waxaan rabnaa in ducadooda dadka saa u urursano Facebook labaad waxa weeyaan ganacsada waanu kulanay gawaarida waaweyn ballan baanu qabsanay waxna kula hadaan istoodho aan gawaarida kaga rogno raashinka ama rarka ay noo wadaan aanay horay ku talagal u jirin waqti halana siiyo intii aan ka dadaali karno inay wadooyinku xidhmaana waanu ka dadaalayna haduu la helaa meelaha dhibaatooyinku soo gaadhaana waan idin la dhisaynaa contribution naga qaada laakiin intaan istoodho banaan ka samaysanayno inta muddo hal noo qabto taasaan ku heshiinay aad iyo aadna waa mahadsantiin miyamaan la isooran karin maayirka magaalada Boorama waxa uu bariyahan dambe horumarkii degmada Boorama ka socon lahaa hadii ay ka mid tahay kaabayaasha horumarka dhaqaalaha ee xagga wadooyinka wadada ugu weyn ee halbowlaha bartanka ee magaalada Boorama aleel ilaa kulmiye ilaa dusha sare u baxday shida bil road burbur xoogan baa ka muuqda maxaad hawlahaasi wax uga qaban weyday inta arrimaha kale ee gobolka ka jira iyo degmada ka jira ka mashquulshay horta waxa weeyaan labadaba beelaha noo taal gaar ahaan aniga ay taal dawladda hoosana anoo kaliya ma mas'uuliyiintii kale oo dhan ayaa ku mashquulsan inay hagaajiyaan wadooyinka haddaad kamarada qaadato aynu wada hadlayno waxaad arkaysaa injineeradii oo cabiraya taas waxay muujinaysaa maamul daadejin inaad sameeyno shaqadu ayna ku xidhnaanin oo kaliya mayor oo politician laakiin hawlaha technical cidii aan looga maarmi karayn way wadaan oo shaqada sideeda u wadaan aad iyo aad ma santahay waxaan jecelahay oo idinka codsanaya hadda inaad sii martaano aad ka soo duubtaan inamadiyo daalan oo shaqeynaya baahalihii rakibtay in cabiraya meel